tartanka madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu sanadkan u dhaco si ka duwan sanadihii hore iyadoo ay muuqato inuu isbedel ku yimid habkii lacagaha lagu bixin jiray codadka xildhibaanada dooranaya madaxweynaha cusub. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la rumaysan yahay in $25,000 uu ku gatay codadka xildhibaanadii uu codeeyay uu kaga soo gudbay wareegii koobaad ee doorashadii 2017 ka hor intii uusan si bilaash ah ku helin codadka xildhibaanadii diidanaa inuu soo baxo Xasan Sheekh Maxamuud. inkastoo weli la rumaysan yahay in aan la huri doonin in la iibsado codadka xildhibaanada, haddana musharaxiinta madaxweynaha ayaa sanadkan adeegsanaya xeelad ka duwantii aan baranay sanadihii la soo dhaafay. siday ogaatay caasimadda online, musharaxiinta madaxweynaha ayaa ka shaqaynaya inay xaqiijiyaan in marka horeba ay xildhibaanada noqdaan siyaasiyiin ku aragti iyo xeeldaab ah si ay sargadaal dambe lacag ugu bixin iibsashada xildhibaanada aan la isku halleyn karin. arrintan ayaa loo sababeynayaa 2 qodob oo kala ah. qodobka koowaad, ammaano la'aanta xildhibaanada. doorashooyinkii hore oo ugu dambeysay tii 2017 waxaa dhacday in xildhibaano badan aysan codadka siin musharaxiintii ay lacagaha ka qaateen oo ay isku halleynayeen kuwaasi oo ku ballan furtay. xaqiiqda ayaa ah in codadku uu yahay mid sir ah isla markaana aan la ogaan karin cid uu xildhibaanku u codeynayo, iyadoo oo fududeysay in xildhibaanku uu musharaxiin dhowr ah lacag ka qaato kadibna uu codeeyo midku uu aragti ahaan ama qabiil ahaan isagu uu taageersan yahay. arrintan ayaa ku dhacday musharaxiin badan oo uu ka mid yahay Xasan Sheekh Maxamuud oo sida la rumaysan yahay isku halleynayay codad xildhibaan oo gaaraya 200 balse ku dhamaatay 80 xildhibaan. qodobka labaad, lacag la'aan xoogan oo haysata musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan ayaa badankood wajahaya lacag la'aan xoogan iyada oo badankood ay ku sugan yihiin xaalad quus ah oo iska daa inay cod iibsadaan xataa la xarbinaya inay iska bixiyaan biilasha iyo qarashaadka maalinlaha ah ee ku soo baxaya. lacag la'aanta ayaa waxa ugu wacan iyada oo inta badan dalalkii lacagaha siin jiray musharaxiinta oo ay ugu weyn yihiin kuwa carabta ay sanadkani albaabada ka xirteen musharaxiinta oo ilaa iyo hadda ay diidan yihiin inay lacag siiyaan. wadamadan carabta ayaa sababtay albaabada ugu xirteen lagu sheegay 2 qodob oo kala ah inay weli ka shaki qabaan in dalka doorasho uu aado iyo in doorashooyinkii hore ay lacag ka qaateen musharaxiin aanay dhabka ahayn inay xilka madaxweynaha u dagaalamaan si ay u helaan. inkastoo laga yaabo in lacagaha ay soo baxaan xilli dambe, haddana waxay albaab xirashadooda ay qasabtay in musharaxiinta ay ciyaaraan xeelada kale. siday ogaatay caasimadda online, musharaxiinta madaxweynaha ayaa sanadkan xooga saaraya inay xaqiijiyaan inay soo baxaan xildhibaano taageersan oo la isku halleyn karo si ay uga baaqsadaan in ay gadaal dambe lacag ka bixiyaan ama lagu ballan furto. xeeladan ayaa shaqayn karta sababtoo ah xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya badankood uma baahna inay lacag bixiyaan iyagoo adeegsanaya saameynta ay ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada qaarkood. madaxweyne Farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuu yahay musharaxa ugu dhaqaalaha roon maadaama lacagtii dawladdu isagu gacanta ku hayo, iyada oo sidoo oo kale uu ku dadaalayo inuu soo saaro xildhibaano u badan kuwa cusub xilli la rumaysan yahay in xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya badankood aanay taageersanin madaxweyne Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorshihiisu yahay inuu soo saarto in ka badan 100 xildhibaan oo badanaa ah kuwa ka soo galaya Somaliland, beesha shanaad, beesha uu ka soo jeedo iyo xildhibaanada laga soo dooranayo Koonfur Galbeed Soomaaliya. soo bixitaanka xildhibaano badan oo cusub ayaa rajo siinaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka soo laabashada xildhibaanada hadda jira badankood ay sii wiiqayso rajadiisa isla markaana xoojinayso suurtagalnimada ah inay soo bixi karo madaxweyne cusub. waxa ay ahaataba xilli la rumaysan yahay in codadka xildhibaanada doorashada soo socota uu midkiiba gaari doono $100,000, waxaana hadda muuqata suurtagalnimada ah in doorashada ay codadka xildhibaanadu noqdaan kuwa ugu qiimaha jaban.